فسؤال سويدين باه إن أضنفت هذا كجعلاتي خليل الرحمن والنبي عليه الصلاة والسلام وحاوي مدي عمر بن الخطاب مركاسا وحو لرسولك إلهي والذي نفسي بيده بان كدارتي waxaan ka jecelahay wax walba oo adduunka ku sugan ilaa naftayda uun mooyaane marka Umar wuxuu ku hadlayay tabiicatul bashar ruuxa basharka ah Ilaahay wuxuu ku abuuray inuu naftiisa horta ugu jeclaado oo caawa hadii maanta halka xabad lagala soo baxo la yiraahdo haye hal soo dhiiba nin walba xagga dambu mar hebelo bal adigu warsoonigii sheekhaga ahaa ma hawsh way adag tahay uu leeyahay soo saamaha naftiisu ka jecel yahay isagu marka tabiicatul bashar buu eego wuxuu ri wax walbaan ka jecelahay naftayda uun mooyaan la ya Umar baa lagu yiri Umar oo arinku sida ma ah meeshii la rabay maadan gaarsiin in yarbu aamuso markaas wuxuu ri rasuulkii Ilaahayow naftaydana waan ka jecelahay markuu arkay wixii dalaalada ka saaray ee hanuunka galiyay ee riwaayada ka soo saaray ee al-huda bisabab rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam inuu ahaa ayuu yiri hadda naftaydana waan ka jecelahay muxuu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wa sallam al-aana ya Umar hadda meeshii laga rabay aad gaadhay Umarow idan inuu shakhsigu naftiisa ka jeclaado nabiga calayhi salaatu wassalaam oo uu ka hormariyo waxyaabaha isaga maladaadkiisa iyo waxa uu isagu jecel yahay waxa uu rasuulku jecel yahay sallallahu alayhi wasallam qodobka labaad waxa weeye wa an yuhibba al-mar'a لا يحبه إلا لله إنه شخصي روح وجعلاده ولا الكيئة لوجه الله تعالى أو إن أفكر لغير هذا ويفضل ضحي هذا لو در إلهي بانكو جعله لكن هدي أدب إسكوغن نقطي عد الله عد آد ما أنت تهميسو إنا تعيشهاي waxaad ku jeceshahay waxa weeye dana uun idin ka dhaxeeyo iyo calaaqa uun khaas ah waayahay idan nabiga ha lagu saliyo Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi haddii aan u fiirsano calaaqaadkeena maanta waxaa laga yaabaa ruux walba oo aad isleedahay waad jeceshahay jacaylkiina wuxuu ku qotamaa uun dano ama qaraaba idinka dhaxaysa ama shaqa idinka dhaxaysa ama waxa weeye ehelnima idinka dhaxaysa ama waa ciidaad dhashay laakiin intaad qalbigaaga ku noqoto waxa laga yaabaa inaadan ka soo helin ruux aad tiraahdo li wajhi illaahi baanu jecelahay way yartahay arintaas lidalika ba wuxuu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wa sallam wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah kanu dambeeya waxa weeye inuu naco gaalnimada inuu ku laabto siduu u nacayo in naarta lagu tuuro haddaba ikhwaani fillah su'aasha muhiimka ah isweydiinta mudan waxa weeye nabigeena ma u jecel lahay sallallahu alayhi wa sallam say saxaabadiisu u jeclaayeen wuxuu leeyahay Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu rasuulka ilaahay wuxuu ahaa mid aanu ka jecel lahay nafafyaalkayaga iyo ehelkayaga iyo awlaadayada wa min al-maa'il barid 'ala al-dhama biyaha qabow ruuxa aadka u oomanisu ugu baahan yahay ee uu u jecel yahay si ka badan baanu nabiga u jeclayn sallallahu alayhi wasallam waqtiga inagu kooban suwarka
markii shakhsigu uu leeyahay nabigaan jecelahay sallallahu alayhi wasallam hatta uhibbuhu min nafsi naftaydan hatta ka jecelahay waxa loo baahan yahay inuu hadyigiisii hayo wadadii uu u jideeyay maro sunnihii uu u jeexay raaco oo uunan mid kale ka garab jeexanin ra'yi iyo isaga wax la qumanaaday oo hawadiisa ku salaysan una aqeeda ka dhiganin jacaylka nabiga sallallahu alayhi wasallam ma aha macnihiisu xuduudii uu sharciyeeyay in la dhaafo saxaabadii kamida guriga nabiga soo booqday sallallahu alayhi wasallam markaas aswaajtiisa waxay weydiiyeen qaabka uu nabigu u cibaadeysan jiray way u warameen oo waxay yiraahdeen wuxuu sameyn jiray sidaa iyo sidaa iyo sidaa فكأنما واحد مودا إن يريستين ويراهدين والنبي هو خير خلق الله دنبغي سيه رأيكي دنبابا والله طافي أين نحن منه إنه حقينه بك جاري رجي مركا ولا برتمي وكانني له أنو هبين وربان صلاتكن ننكر مالين كستوان سومي مدكلا الضمر أوردن أدوان مايو nabiga calayhi salaatu wasalaam markii loo sheegay ma uusan oranin waxa tihiin saxaabo cibaadada jecel wixii aan la imiday baad rabtaanba inaad aniga igu dhaaftaan alla maxaan rag soo saaray ma oranin sidaa bal isagoo caraysan oo muhmarul wajhi ayuu minbarka fuulay markaas wuxuu yiri ma baalu qawmin warqolo arrimahood maxay yihiin min xikmati ma magacaabi jirin hebel oo gooni afarta kuma fiiqi jirin war ragga ay iga soo gaadhay inay yiraahdeen kada wa kada wa kada maxay maagan yihiin raggaas kadib uu u sheegay meel isaga loo dhaafo oo alla xaqii inaga xigtaa inaynan jirin oo uu dhaarto wuxuu yiri ama wallahi إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له والله بانكو دارتي الله أنا إذن كو أقانا سائر جيجي وصاد ريبانا أنا إذن كو عبس بدن ربي عد إيجا عبس بدن ما جرتو سدا صيتهاي هبينكي وانا تكن وانا صيحان مالمها قار وان سومي قار كلنا وان أفوري وأتزوج النساء ضمر كنوان جورسن فمن رغب عن سنتي فليس مني والروح أنيق السنة إذا صدا النعو أنيق الدين تيذا إيا الشريعة إذا مدك مذا مته إذا بنانك أوغب حضي أركتذي النقابا إيا فكر كمان تجيرا لمن كاسي وح عيبا ما ينسمي نوحول هبين أو رنب الله يبان وتاجنان نوحول ورانو مالين كاستوابن سومي أون ربي جيبان أسومي مد نوحول وردمر كوال لجوي أو إسقى بشة حبيبكو إني فتقوا الدنيا واتقوا النساء ده حوالي دوان إسكدين نساءنا مشغولين حضنا عنان تكون عضي أفير سواء الليل فمن رغب عن سنتها فليس مني أنا إجمد معها معناه ذو معها نبي كان شعرها صلى الله عليه وسلم وحونا إسقو إيشي نبان سمين تاجعي لميده تاجعي كربته وحويه ما شاءوا إيسون طيبان أنكو استاجي oo taacadku may suntan yihiin jawaabtu waa nacam oo seebay u suntan yihiin haddii cibaadadaad samaynaysaa qalbiga ay ku tacalluqdo waxa u amiisaan iyo jaangoyn xadiiska Umar ee oranaya man innamal a'malu binniyat
haddii aad cid kale wax uun kaga doonayso cibaadadaadaasi waa baatil hadday cibaado ficil tahay ciid la ciidayo jimco la tukanayo salaado la xaadirayo sadaqaad khaas ah oo la bixinayo waxaa u miisaana man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun ba u miisaan warwarkaasi miyuunan caddayn war cad weeye inaynan taacadu ku ansixin qalbigayga baa wanaagsan baynu dhowr tusaale ka soo qaadi nabigu sallallahu alayhi wasallam ha lagu salliyo masaajidku maalin maalmaha kamida soo galay markaasuu arkay xarig lagu giijiyay bayna saariyatayn labada tiir oo kale dhexdood markaasaa wuxuu yiri war xarigani waa maxay waxa la yiri xarigan heblo oo min azwaajihi kamid baa habeenkii markay say u tukanaysa daasho ayay cuskataayo way ku istaagtaa ma oranin alleelaha qof daacaysato oo dadaalaysa weeye xulluuhu buu war xarigan hadda hal fulo عليكم من الأعمال بما تطيقون عملك انت أودان كسمية بوري يا يري رمح مركو كعي كريوايو حركها عسكبو فوالله لن يمل الله حتى تملوا الله كدالي ما ينو أجرك يا حسناتك إذن لا لابيو إلى أد إذنكو كداشان هذا الله أعطيدي لما ترتمي كرتان nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo jideeyay in aynu ku dhaganaano wax alla wixii uu isagu sameeyninna aynu ka fogaano taasa jacaylka nabiga sallallahu ilaahayow